dhibaatadii ka dhacday xarunta xisbiga wadajir ay ku naf waayeen 6 muwaadin oo Soomaaliyeed oo ayagoo hoygoodii jooga si sharci darro ah ee baalmarsan shuruucda dalkan u yaala lagu soo weeraray laguna laayay naftoodii inay ku waayeen. waxaan leeyahay samri iimaan Allah ka siiyo ehladii iyo qaraabadii dadka ay ka dhinteen. waxaad moodaa sida saaxiibadeeda igu horreeyay oo dhan ka dhawaajiyeen ayna ka digeen in sharcigii iyo kala dambeyntii lagu soo tiir iyo tacabeelay dowladihii u dambeeyey ee dalkan ka hana qaaday ee dimuqraadiga ahaa inay sidii 8 February laga soo bilaabo burburin lagu bilaabay. waxaana wada ognahay waxa ka dhalan kara. Soomaali waxay ku heshiisay shuruuc ay samaysatay haddii shuruucda la baal marana waxaan wada ognahay waxa ka imaan kara. waxa ka imaan kara waxa weeye in dib loo noqdo way. waxaan ka digaynaa oo aan ku celcelinaynaa in madaxda qaranku ay u hoggaansamaan sharciga ay u dhaarteen ayna ka joojiyaan xadgudubka muwaadiniinta Soomaaliyeed ayna ku mashquulaan horumarinta dalkan iyo difaaca dalkan uu baahan yahay. ma ahan maanta markii lagu soo duuli lahaa xisbi iyo dad shacab ah ee meel jooga waan la soconnaa amniga dalku inuu faraha ka sii baxayay bilihii la soo dhaafo dhan ummad badan oo Soomaaliyeedna ku naf waayeen. dawladdu waxa u mudneed runtii inay ku mashquulsho difaaca shacabka ee maahan ayadu inay difaaca shacabka sida cadawgiyo kale inta u soo weerarto ay baabi'iso. arrintaas marka arrin aad u foolxun weeye. waa ka digaynaa. waxaan leenahay dib isugu noqda. waxaan kaloo rabnaa inaan sheegno inaan la isaga hari doonin. Soomaali waxay u baratay wax intii la sameeyo madaxda qaranku la iska ilaawo hore looga socdo. waxaan cod dheer ku leenahay dadkii meeshaas ku naf waayey iyo sharcigii la jebiyey inaan marnaba la isaga hari doonin oo wax badan la iska weydii doono. waxaan rajaynaynaa in dad badani ay ciqaab la kulmi doonaan maaragtay ku weyd doonaan xilalka ay hayaan ay ku weyd doonaan rajaynaynaa insha Allah taala markii baarlamaanku hadii Ilaahay madibna ugu furmo February insha Allah. aniga waxaan ka mid ahay xildhibaanadii sida maaragta aan ka fiirsashada lahayn xadgudubka ahaa oo xereelaaliyuhu u soo eedeeyay inay galeen maxaan ku yiraahdaayay qaran dumis. waxaan u malaynayaa qaran dumis macnaheedu in afka laga yiraahdo waa sahlan tahay laakiin inuu waxaan u malaynayaa xereelaaliyuhu uusan fahmin waxa qaran dumis uu yahay. baaxadda ay la egtaa eragaasi inuusan fahmin. qof walba oo wax garad ahna waa dareemi karaa inaan wax qaran dumis la yiraahay haysa dalkan ku qaran dumis waxaan u naqaanaa dagaalka shabaabku oo halkaas ka soo wadaan u naqaanaa qaranka raba inuu burburiyo. laakiin in xildhibaan ah ee subax walba u shaqo taga golaha shacabka shaqadiisa waajibkiisa gutaa afkaartiisa xorta ahaydna sheega in lagu tilmaamo waa qaran dumis waxay la tahay taasi waa xadgudub. waxaanan runtii sharaf ah in guddoonka baarlamaanku ay faahfaahin iyo jawaab sax ah taas ka bixiyeen. waan uga mahad celinaynaa runtii khaladaadkii uu galay iyo waxa uu ahaa inuu maro inuu jidadkii u dhan uusan marin laakiin uu jid qardajeexa uu iska soo maray oo uu ujeeddada laga lahaana ay ahayd annaga sharafteena iyo karaamadeenna runtii in lagu dilo. taasina waa ka dhicisowday. waxaan rabnaa insha Allah taala ayadana la isagama hari doono oo intii meediyaha laga sheego oo la iska tagaa kuma ekaan doonto. xereelaalyaha Axmed Cali Daahirna sharcigan ku kala bixi doonaa kamana aamusi doono. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala baarlamaanka sharafta lana waa nala qabaan afkaartaas in runtii sharaftii uu isku dayay inuu naga qaado iyo karaamad darradii uu nagu sameeyey in maxaan ku yiraahdaa ciqaabteedu ay meel fuusho. waxaan rajaynaynaa inay meel fuuli doonto haddii Ilaahay idmo. madaxduna waxaa nasiib darro ah runtii annagoo waqtigan joogna oo dadka Soomaaliyeed ay ka soo gudbeen runtii dagaal iyo dhibaato iyo qaab darro in maanta isku dayaan runtii inay caburin ay ku sameeyaan xildhibaanada.
waxaan u sheegaynaa inaan nala cuburi karin waxaan la taagannahay xaqaan u leenahay madaxweynuhu hadduu dastuurka jebiyo qodobadiisa qodob ka mid ah waxaan waajib nagu ah oo aan u dhaarannay inaan la xisaabtanno la xisaabtankiisu maahan inaan madaxa ka salaxno la xisaabtankiisu waxa weeye soo jeedin inaan keenno baarlamaanka dhex keenno xilka looga qaado waxaana rajaynaynaa madaxweynuhu hal maahan laba maahan saddex maahan tii u dambaysay oo lagu weeraray cabdiraxmaan cabdishakuur waa qodob dastuuri ah oo la jebiyey oo muwaadinka soomaaliyeed ee gurigiisa jooga iyo hoogiisa jooga aan loo soo maray shuruucda iyo dastuurka ku qorneed waa qodob dastuuriyahoo la jebiyey madaxweynuhu kaasuu xilka ku weyn karaa xilka kaasuu ku weyn karaa mid kale iska dhaaf waxaa ka horreeyey kii qalbi dhagaxa ka horreeya saad la socotaan kuwo kaleoo tiro badan ayaa jira oo madaxweynuhu uu jebiyey oo qodobo dastuuri ah waxaan u sheegaynaa bulshada soomaaliyeed oo marka ay maqlaan mooshin mooda qarandumis waa inay kala saaraana kala ogaadaan la xisaabtanka shakhsiga ah iyo dowladnimada dowladnimada annagaa dowladdiiya dowladda maaha waxa la duminaya dowladdii maaha qofkii mooshin ka hadlaahay shacabkii waxaa laga dhaadhiciyay in dowladdu dumayso dowladdu ma dumaysoe moshinku waxbuu toosiyaa moshinku waa la xisaabtan qofkii qodobka jebiyey ama dastuurka ku dheelay ayuu la xisaabtamaa waxaan u sheegaynaa marka maran habaabinta ay social mediaha iyo shacabka inta badan lagu maran habaabinaya ah maxaan ku idhahdaaye waxaa la jebinayaa dowladdii baa la duminayaa waa dowlad dumis dowladda la dumin maayee dowladda baa la saxayaa dastuurka baa la ilaalinayaa madaxweynaha haddaan faraha idin kaga qaadno shacabo sida qalbi dhagaxuu hal idiin dhoofinaya waxa uusan idiin dhoofi karin oo annaga wax hortaagan ogaada taas hal aa la idiin keenaya etoobiya iyo meel la mida marka ha welwelinina dowladna idinka dumi mayso qof la bedelaahi iyo dowladnima iska kayn khaldami madaxweynuhu hadduu khaldamo maxaad 4 sano u sii haysanaysaa waa la iska bedelayaa madaxweynihii kale la keenay hadduu asagu halaabo oo sharciga jebiyeyna waa la bedelaa taas waxaan annaga u nahay baarlamaan haddii aan laakiin la bedeli karin ay tahay loo sacbatum waxaan malaynayaa taas waxa weeye waa xildhibaanadii hore 21 sano dowladdii ahayd ay samaysan jirto ayadu samaysan jirto oo loo digri jiray annaga ugu digri mayna madaxda waa la xisaabtamayna intaas baan rabnaa inaan shacabka u sheegno dowlad dumis yaan la idinku wareerinin wax dowladda dumaysa lama arkee ninka dowladda duminaya waa ninka dastuurka dumiyey waa ninka dastuurka xadgudbo waaye wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi أشكوغان قضية وضلها كم أي حرامات كوسو قرندومس طبعا خلاص أنا إن حرامات قد سوى قط حفيزك أما بدوك سنة برلمان كوكو سنة إن حسنة بلا يعني مثلا وقت سعودة عن وقت كل جودة سواش لوات حنقول أقول شعبك ترى أغان أنتو بيها عشان لا بقول ثلاثة شهور أنت أصلاً صابت أريد حسب على حرارة فرد اللي بسوسيدي أما اللي كسر أحسار نغلس حرارة لا سؤال مد سؤال كواد دان كاجا جوابه حر ilaalinta warqadii ay soo gudbisay gudoonka already waa uga jawaab waxaana filayaa inaad meediyaha ku aragteen jawaabteedii oo xer ilaalinta loogu jawaabay inaysan si sharciyan u soo marin caddayn aysan keenin gudiga joogtada ayaa su'aalo weydiiyey xer ilaalinta wax jawaab ay ka bixisana ma aysan jirin wax jawaab uu keenayna ma aysan jirin sidaas darteed taas waxaan isleeyahay gudoonka already jawaabteeda bixiyay midda aha maaragtay maxaa labadiina la idin target gareeyeen waa la socotaa horta sideedaba suuragal ma 275 qofood in hal mar ay maaragtay dawladdu la dagaasho ama ay la yiraahdo hal lagu furo tashuushu sharafta laga qaado macnaheeda suuragal ma aha waxa marka mar walba la target gareynayaa shakhsiyaadka aad moodid marka walba inay ayagu markaas ay xildhibaanada dhexdooda ay ka wadaan ama ay sheegayaan wax khaldan anaaba la taagan ba xildhibaanada dhexdooda mar walba inaan kala niqaashno ama ka wada hadalno niraahno war qodobadan dastuuriga ah la jabiyay maxaan ka yeelnaa taas macnaheedu waxa weeye qofkii hadlaaya oo markaas dhahayo waa lagu qasban yahay in la target garay kaligeena nagu maahana waa badan yihiin sidaan la soconno numberku intaan waa ka badnaa labadeena waa ka badnaa 22 xildhibaan qorneed laakiin waxa la yiri qolaba mar aan soo deyno oo maaragtay 5 mar 2 mar 3 mar aan soo deyno marka annaga wax nagu kooban maahane inta kale oo nala qabta afkaarta ah wacyigelinta iyo kor u hadista ah inaan kor u hadalno niraahno waxaan qodob dastuuriyaha la jabiyay waa inta laaba laga qaadaa annaga naguma koobnay waa ka badan labadeena joog bulshada la yiraahdo waxaan rabaa inaan marna ku weydiiyo waxaad sheegtay mudanayaal badan ay jiraan adinka laakiin kaliya target dowladda ka mid yihiin sharciyaasha ku jirta inuu hogaankii dalka sidee kula tahay marka in madaxweynuhu ugu hor imaan karo baarlamaanka maxay tahay waxaad ogtihiin aad idinku targetka ku tihiin
anagu de waxaan taariikhda ku nahay dabcan de ayaga la weydiinaa waxa anaga de waa intaan ka hadla way kulleyba maaragtay oo aan sheegno anagu inaan de mar walbaba aan de u taagannahay inaan de baarlamaanka intiisa kala iyo ciddii kaloo asxaabna loo kaligeena ma ahan waa badannahay laakiin dasaan kuu sheegay qoloba mar bay taarget garaysanayaan waa soo socdaan kuwa kalena isugu weynin heshiis la gasheen dowladda shisheeye oo lacaga badan ka qaadeen wadaan maaragtay sidii kaas waa eedeyntii de base aan lahayn haddii intaasi jiraan xeer ilaalinta horkeeni lahayd guddoonka maaragtay guddiga joogtada baarlamaanka markay waceen waa keeni lahaayeen hadday proof u haayaan marka arrintaasi waxaad moodaa waayahan dambe waxaa Soomaaliya ka jiri jirtay qofkii fikir cabira in la dhihi jiray dawlad hebel iyo Ethiopia wadata hadda waa new style waaye imaarada wata wax la yiraahdo socdo qofkii yiraahdo waa khaldantihiin waxa la imaarada soo diray marka waa iska taqaana dhaqan Soomaalidu mar walba wixii markaas taagan baa qofka lagu shaabadaya laakiin annaga wax dawladoon xariir leenahna ma jirto waxaan lacag soo qaadanayna ma jirto marka laakiin waxaan xaqiijinaynaa madaxweynuhu asagu laftigiisu oo lacagna soo qaatay aan hayna 100 xildhibaan ka badan oo lacag siiyay ilaa hadeerna ay lacagtu ka socoto maaragtay madaxtooyada oo xildhibaano badan la leeyahay ha ka hadlanina qodobkii qalbi dhagax ha ka hadlanina qodobadan oo dhan oo dastuuriga la jabiyay taas ayada cadeyn aruntii oo hadii loo baahdana loo heli karaa cadeyn in loo keeno xildhibaan waa dalsan Muqdisho waxaan rabaa laba su'aal inuu ku weydiiyo waatan koowaad waxaad sheegtay in baarlamaanku marka uu furmo laga hadli doono arrinta ku aadan adiga iyo xildhibaanka kale eedeyntii ما laga hadli doono kuma dhayna xeer ilaalinta dambiga ay gashaa laga hadlaya laga hadli doono sida aad sheegtay waliba madaxda sarena lala xisaabtami doono talaabo laga qaado saacada ku dhigtay xildhibaanadu waa kala arki duwan adaaba hadda sheegaya in qayb kamid ah riixo saacada ku dhigtay marka kalsoonida aad ku qabto in xildhibaano miisaan leh inta kugu aragtida ah oo hadda isu keenaha aan ahayn oo arrintaas talaabo ka qaada aad u hayso aduu heli karto waa su'aal marka baarlamaanku furo tan kale 8 kursi oo kursigaagu uu ku jiro ay hadda ka hor maxkamadda sare ama 8 kursi kuma jiro geeyo okay halo kuraas xildhibaano kala duwan ayaa maxkamadda sare ay tiri dib u dhigto tiri waxba kama jiraan ku soo qaaday baarlamaanku go'aan guud ay ka qaateen arrinta gaashaanka u dhigay arrintaas iyo arrintan hadda adiga iyo xasan macalin baydin ku soo arrinbaysan maxaa xilku ka dhaxayn karaa horta midaan waxba kama dhaxayn karaan arintaasi waa case dhamaaday weeye oo maxkamadda sare soo gudbisay baarlamaankuna qaraar uu ka soo saaray waana dhamaatay meeshaas ay ku dhamaatay anuguna 8daas xildhibaan kuma jiro su'aashaada kale oo hore ku celi waan ilaaway waxaad tiri baarlamaanku markuu furmo arrintan laga hadli doonaa oo waliba arrinta la xisaab wasaas weeye arrinta xeer ilaalintu xadgudubka iyo sharaf dhaca xildhibaanada ka Soomaaliyeed kalsoonida baarlamaanka ku qabaa waxay tahay baarlamaanku ama aniga ama ay igu aragtay ahaadeen ama igu aragtay ahaaneen waxaan ka aaminsanahay xildhibaanada baarlamaanka ee sharafta leh inay mar walbaba ay fahmi karaan waxa uu yahay cadaaladdu iyo meesha loo socdo marka waxaan is leeyahay inaan isku aragtay ka wada noqon doonaan ka rajeynaa insha Allah ta'ala